tahay xaqiiq waxa ah wiilka ama gabadha hooyadeeda cid u noqon karto dunida saaran ma jiro sidoo kale qof booska aabaha gali karana ma jiro waa xaqiiqtaas oo jirto la og yahay mar walba aabahaaga waa aabaha ama hooyada waa hooyada kulanti waxaan wanaagsan dhamaan inta ku xiran channelka Ibrahim Arab Official waad ku mahadsantiin la socodka nala socotiin asxaabta cusub waxa la inahay soo dhawaada waxaan ka harrabnaa in kala taga qoyska markay kala tagaan miyay ku yeelataa saameynta badan runtii badanaa hadii aan ka hadalno labada qof ee kala tagay markii ay awlaad isku dhalaan dhibaatada ugu weyn waxa ay yeelataa ama ay ku yeelataa ama ay saameyn ugu imaataa caruurtaasi Ilaahay labadan qof uu ka dhaxbeeray taasi oo runtii qiimeyn badan iyo dhacdooyin badan ee runtii naxanuujiyay ee aan ka aragnay markii labada qof ay kala tagaan oo ay waxba isku dhalin runtii aad bay u sahlan tahay qof walba wadadiisa ayuu marayaa nolol cusub iyo wuxuu bilaabanayaa juhdi kale laakiin markii labada qof ay awlaad iska dhalaan runtii arinta way cuslaataa sababtu waxa ay tahay badanaa qoysaska markay kala tagayaan way yar tahay in qoys runtii si wanaaga ku kala tago aad ay u yar tahay badanaa markii la kala tagayo runtii iyadoo la kala sheeganayo dhibaatooyin badan oo saameyn ay jirto afagtiyo badan meesha uu yaalo ayaa lagu kala tagaa sidaas daraadeeda caruurta markaasi joogto qofkii markaas qaato ayaa runtii waxa dhacayso in qofka kale culays ay ku noqoto waayo meeshii wanaag ma yaalo oo la isugu imaado ilmihii lagu kala korsado badanaa Soomaalida markay kala tagaan waxa imaado in qof uu wato caruurtii qofkaasi uu haysto dadka marka caruurta qaato hadii uu noqdo ninka iyo hadii uu noqdo naagta laba mid ayaa dhacda markuu ninka qaato ama markay naagta qaadato laba wada ayaa sugaysa qaar ilmahaas waxay isku dayaan hadii ninka uu qaatay inuu hooyadiisa ka qariyo ama uu u sheegin ama xumaan uu ugu sheego oo cunugii yaray lagu koriyo uqdad iyo runtii wixii aabihii hooyada dhaxmaray in loogu sheekeeyo iyo waxyaabihii lagu dari karo waa taqaanaad qof uu la dagaalsan yahay dhibaatada uu u keeni karo ama waxa uu u fahansiin karo ubadkaas haysto markii uu ninka ragga qaato wiilka wuxuu ka dhaadhicinaa ama gabadha in hooyadiisa ahayd qof xun ee xumeysay oo isaga uu rabin darteed loo gooyay waxyaabo la mid ah markuu hooyada ee qaadatana iyadana sidoo kale waxa ay runtii u sheegaysaa in aabaha uu ahaa qof xun iyada ay soo korsatay intaan ay la soo ekeysiisay si la mid ah ayaa aabihiina wuxuu cunugii ka dhaadhicinayaa wax alla waxa uu doono saameyn marka waxay yeelanaysaa horta koow cunugaasi xaqiiq waxa ah qoys dhisan ubadkooda farxadda uu helayo ma helayo sababtu waxay tahay xaqiiq waxa ah wiilka ama gabadha hooyadeeda cid u noqon karto dunida saaran ma jiro sidoo kale qof booska aabaha gali karana ma jiro waa xaqiiqtaas oo jirto la og yahay mar walba aabahaaga waa aabaha ama hooyada waa hooyada marka waxa dhacayso runtii caqabado badan in ilmihii ay ku beermaan uqdadaasi oo qayb kamid ah farxadooda ay ka dhimanayso hadii uu aabaha qaato waxa dhimanayo qaybtii farxadda uu ka heli lahaa hooyada ayaa waxay ugu bedelmaysaa uqdad hadii ay hooyada qaadatana cunugaas wuxuu u qaadayaa ama gabadhaas waxay u qaadaysaa uqdad aabihii meeshii farxad iyo jacayl ay ka heli lahayd waxay u qaadaysaa uqdadana micnaheedu waxay tahay waa murug oo runtii timaada marka sidaas daraadeeda ubadka wuxuu la kulmayaa wuxuu korayaa isagoo uqdad ku jirto way jiraan dad kala tagay oo runtii isxumeeyay laakiin ubadkii si qurux badan u koriyay xumaana aan isaga sheegin oo in aabihiisa uu nool yahay ama hooyadeed ay nooshahay oo ay kala joogaan kaliya labadooda ee iskhilaafeen laakiin qaar way jiraan laakiin badanaa uma badnin waxaan u badannahay qofkii qaata caruurta ayaa runtii mar walba isxijiya
qofka kalena banaanka ka dhiga. Banaan dhigidaasi waxay caqabad ku noqonaysaa marka caruurtaasi oo runtii dhan farxad ka weynayo dhanna uqdad ay ka galaysaa. Sidaas daraadeed saameynta ugu badan waxay yeelanaysaa markii ay kala tagaan laba qof ubadka caruurta markaasi ay isku dhaleen ayay saameyn badan ku yeelanaysaa. wali si walba haday weynaadaan xataa way ku yeelanaysaa. sababtu waxay tahay yaraantaadii waxaadna arag yaraantaadii wixii lagaaga sheekeyn jiray markii aad weynaato sidaad isaga fuqdo way adag tahay. sidaas daraadeeda isku mid ma noqon karaan caruur aabahooda iyo hooyadooda farxad ku soo koriyeen iyo caruur ama hooyo kaliya ay soo korisay ama aaba kaliya uu soo koriyay. aad ayay u adag tahay taas. caruurtaasina waxay noqonayaan caruur uqdad ku soo kortay. waan waxyaabo badan aan ognahay aan baarnay runtii dadka inta badan isku raacsan yihiin in awlaadda markii la wada korinayo ay runtii qalbigooda iyo niyadooda ay aad u sareyso. sidaas daraadeeda furiinka qoyska ku dhaca ama ku imaada sababta ugu badan ama dhibaatada ugu badan waxay saameysaa waxay tahay caruurta markaas ay isku dhaleen labada qof. sidaas daraadeeda marka saameynta ugu badan mar walba waa inaan ka fikirnaa wax walba aan suubinayno waa inaan ka fikirnaa runtii caruurta marka hore xanaaqa iyo waxyaabaha jiro waa inaad ogaataa in awlaadaadii caruurtaadii bari dhibaato badan ay saameyn doonto. taasina ay ugu wacan tahay in cunuga ama aaba kaliya uu soo koriyay ama hooyo kaliya ay soo korisay. sidaas waxa ka maqan qayb kamid ah farxadiisi waxaana u galaysa booskaasi qayb kamid ah murugta. sidaas daraadeeda dhibaatada ugu badan waxay ku imaataa caruurta yar yar. markii xataa waa weyihiin xoogaa macquul laakiin caruurta markay yar yihiin waa wax kamid ah qayb noloshooda kamid ah ay waayeen haday noqon lahayd farxad iyo wadajir waalidkooda oo wada jiro. sidaas daraadeeda waxaan runtii kula talinayaa dhammaan qoysaska Soomaaliyeed in mar walba ay qiimeeyaan wax walba oo iyaga u dhaxeeyo ay fiiriyaan caruurtaasi dhaxdooda taalo sidii farxad ku heli lahaayeen. wax micno yar ah ay laga yaabaa inaad gurigaaga ku burburiso caruurtaadana saameyn ay ku yeelato. sidaas daraadeed waxaan kula talinayaa qoysaska dhisan runtii kuwi burbureen way burbureenbo laakiin qoysaska dhisan mar walba inay fiiriyaan awlaadooda ama caruurtooda saameynta ay ku yeelanayso markii gurigooda uu burburo. sidaas daraadeeda furiinka wuxuu dhibaato ku yahay caruurta markaas ay iska dhaleen dadka kala tagaayo. dhammaan inta channelka ku xiran hadii aad channelka cusub tahay subscribe ka noo dheh. hadii aad hore noo joogtay aad baad ugu mahadsan tahay. habeen wanaagsan.